shantii sano la soo dhaafay ma jiro maamul kaga saameyn badnaa social media Hiiraan. waaweyn kala sheegaya waa United qabiilka muslim iyo gaalab ay ka qeyliyaya waa Reer Beledweyne isku tashi iyo tala dhaxdooda waxay ku dhisteen in magaaladooda ay qurxiyaan sidoo kale laami aad u diyaarsan ay saartaan. tirka wadada laamiga ee dhaxmarta magaalada Beledweyne oo ku dhow heer gabagaba ah ayaa si habsami leh iminka uga socota qayb ka mid ah xaafadda Hurwadaag ee magaalada Beledweyne iyo sidoo kale wadada dheer ee laamiga ee xiriirisa magaalada iyo buurta Jeenta Kundisha. Hiiraan waxay soo saartaa qudaarta ay soo saarto waxay u iibgeysaa maamulada deriskeeda la sida Galmudug iyo Hawaii Puntland. haddii jeer waxaan soo gudbinaa waxyaabaha dadka ay xiiseeyaan sida wararka, sheekooyinka iyo madadaalada. haddii ay Soomaali naga codsato video gooni in aan ka soo hadalno heegan waxaan u ahay in aan ka soo hadlo videogaas. hal subscribe aad noo saarto iyo hal follow aad noo soo dhahdo waxay nagu dhiirigelinaysaa in aan wax fiican oo qurux badan aan soo gudbino. fadlan ha ilaawin inaad follow noo soo dhahaysiin share gareysid guuleysta. السلام عليكم صاحبي على صوت وادا وحن أهي مستر كلمتاني هديت مركز كورة صوت مسابقة وتكون أصلتها بوشل هذا كاستمر كنا وداتها اللي وتكون أصلتها لجيتان كفضلا يوتيوب سبسكرايب صار سير شكري سيدا لسعتان وحسود دو معامل والبا وحوس ميستاذ سنة كورة وحسود دو لغاية 8 أكتوبر مالنكي لأساسي إن هيران ستيت أما قول كهيران سأتقانين ده هل إلا waxaan ka dhigi doonaa Hiiraan waxay gobolada kale kaga fiican tahay iyo maamulada Soomaaliya ka jira waxay kaga fiican tahay hal ilaa ka dhigi doonaa sidoo kale waxaan sheegi doonaa waxyaabaha ay kaga xun tahay maamulada kale haddii aan ka horeyno Hiiraan waa maamulka kaliya oo maanta sheegan karo ammaan haddii qof bani aadam uu sheegto maamulka kaliya ammaan sheegan karo waa shantii sano la soo dhaafay baraha bulshada reer Hiiraan iyaga u kala xirnaa 4 sano ama 5 sano la soo dhaafay ma jiro maamul kaga saameyn badnaa social media Hiiraan. warbaahinta TikTok-leyda, Facebook-leyda, qof kastoo social media isticmaalo maalinkii 5 jeer ayuu wuxuu dhihi jiray Hiiraan State. waxa waaye iyagaa kasbaday horumarkaas iyagaa samaystay. 5 sano la soo dhaafay maamulka ugu hadalhaynta badnaa wuxuu ahaa Hiiraan State. haddii aan u gudgalno Hiiraan State waxyaabaha kale oo ay kaga fiican tahay maamulada kale waxa koob ka ama laba ka Hiiraan waxay soo saartaa qudaarta ay soo saarto waxay u iibgeysaa maamulada deriskeeda la sida Galmudug iyo Hawaii Puntland. iyadoo lacag kaash oo dollar ka samayso. Hiiraan waa magaalada kaliya ee laami uu saaran yahay isku tashi bulsho lagu saaray. maxaa cadeynaya waxaan aan sheegay marxuumba masbeen waa kan dadana bulshada reer Beledweyne shaqadan quruxda badan ay socoto oo laamigii 60 kiiloomitir oo runtii gabagabo marayo qaybaha uu ka kooban yahayna la sameeynayo runtii waa 6 kiiloomitir. reer Beledweyne isku tashi iyo tala dhaxdooda waxay ku dhisteen in magaaladooda ay qurxiyaan sidoo kale laami aad u diyaarsan ay saartaan. haddii aad maqla jirtay shirkadaha shisheeye ayaa qandaraas siiyey maanta waxaa qandaraas siiyey shirkad reer Hiiraan iyaga ay samaysteen weliba dhalinyaro ka soo jeeda ama dad ka soo jeeda gobolka Hiiraan caasimadda magaalada Beledweyne laamigan dhisay qandaraaskan iyaga qaateen. waa kan markaa Maxamed waxaan rabaa si gooni inaan ku ammaano rabaa company style company oo runtii company local oo magaalada laga leeyahay oo runtii ku dadaalay wax qurux badan inuu sameeyo. shaqadan waa shaqo hor u dhaca reer Hiiraan bulshada waxay kaga fiican yihiin ama ay kaga albaxsan yihiin waa bulshada kaliya in aad ka dhalato aad ku faan leedahay hadii ay dhici lahayd. waatan cadeynta haddii maanta lagu dhihi lahaa qabiilkaaga ma qabiil kale noqo heebaa dooran lahayd. I think labadeen ba hal qabiil dooran. halkaas qabiilna ku heshiin karnaa. bis option marka halkaas qabiilna dhahno dad aan jecel lahay xayak balaa wana jecel ma tiqaa weligeena ku sheekay weligeena isku shaaxi jirnaa qabiilkaas noqono sida la socotaan Beledweyne awalkii hore waxa ka jiri jiray isbaaro iyo dhac iyo waxa waaye mooryaanimo
laakiin markii nabadoonka ay la qabtay ama nabadoonka la magacaabay ama bulshada ay soo doorteen isbaaradii oo dhan waa la baabi'iyey bulshadu waxay ku noolaatay amni iyo sinaan iyo cadaalad waatan caddeynta ugaaska beesha xawaadle ugaas yuusuf iyo ganacsatadii isku xiran waxay isla gaareen in la qaado isbaarooyinkaas dhammaan sida ay yihiin oo dhan iyo odayaasha magaalada walaa mid maamul iyo mid hore u tiilo isbaaro caadiye iyo tii maxaan ku yiraahdaa dadkii ganacsatada ah ee jidgooyadii ay sameeyeen koow maxaan dhahnay beledweyne laamiya saaran maamulada kale amal ma ahan oo laami la'aanta oo communicationka ama diyaaradaha jaaga ay ku socoto ma ahan koow ma tahay laba beledweyne qudaarta ay soo saarta ama gobolka hiiraan qudaarta uu soo saaro wax loo dhoofiyaa gobolada dariska hiiraan sida galmudug iyo puntland iyo wixii kale xag ka sida somaliland saddex maxaan dhahnay hiiraan state waxay maamuladu kaga fiican tahay hal isbaar inaan lagu arkayn oo isbaarooyinkii oo dhan ay qaadeen afar maxaan ku sheegnay waa maamulka keliya ee 5tii sano ee lasoo dhaafay baraha bulshada ugu saameynta badnaa maamul kaga saameyn badnaa hiiraan state social media ma jirin baan malsheeyay sax ilaahay aan dilay baan malsheeyay hiiraan state waa maamulka ugu hadalheynta badnaa 5tii sano ee lasoo dhaafay sidoo kale maxaa dhahnay waa maamulka keliya in aad ka dhalato aad ku faan leed hadiiba dhalashada la bixin lahaa ama la iska bedeli lahaa ama wax la gato ay ahaan lahayd qof walba wuxuu dooran lahaa in uu hiiraan state uu ka soo jeedo anigu ma dhihin waatan caddeynta haddii maanta lagu dhihi lahaa qabiilkaaga ma qabiil kaleeto noqo teebaa dooran lahayd sidoo kale hiiraan state waxay bulshada kale kaga fiican yihiin ama gobolada kale ay kaga fiican yihiin 100% waa dad isku xiran sanad guuridii 2024 waad ogeedeen waxaa la buuxiyey beerta nabadda beerta banaadir macal hoteelada magaalada muqdisho markii dambe bulshada waxaa lagu dhahaa ama meel aan gashaan ma lahayn xaafadiina iska aado TV-da ka daawada ama telefoonadiina live-ka ka fiirsada xafladda ka socoto beerta nabadda iyo banaadir iyo hoteelada magaalada muqdisho waa bulshada keliya oo rikoorkaas xirto waay labada beerood oo magaalada muqdisho ku yaalo nabadda iyo banaadir labadaas u weyn labadaasna ay kala xireen hoteeladii meel la gaali waayay hadda way soo dhowdahay xafladooda 4 beriya ka dhiman 12 Oktoobar way soo dhowdahay xafladoodii iyo saameynta ay yeelanayso idinka ay arki doonaan indhaweyne waa arki doontaan elkaasi muxuu yiri ma aqaano wax kale ma aqaano maamul kale aan ka ahayn hiiraan state anagu ma dhihin waa tan caddeynta أنا واحد ما غناني. I don't like myself. intaas hadaan kusoo gabagabeeyo ammaanta ay leedahay ama wanaagga ay leedahay ama sharafta ay leedahay hiiraan state haddaan u galo dhibaatooyinka ama weli xal loo helin oo hiiraan state haysto waxaa kow ka ah ama ka mid ah fatahaadka webiga muddo 30 sano ka badan xal loo laayahay magaalada beledweyne waxay noqotay magaalo markii roobka uu imaado ama webigu uu soo fata laga guuro ka bacdina la soo noqdo taas oo magaalada caqabadii ugu weyneed ee bini'aadan uu xal u laayahay noqotay beledweyne roob hadduu imaado ama webigu uu soo fata waa laga guuraa been maaha waa laga guuraa waa laga kala cararaa qof walba meeshuu aadi karo aada ka bacdina waa soo noqdaa haddii ay arrintaas xal u heli lahayaanna hiiraan waxay noqon lahayd maamulada ugu saameynta badan ama kaalinta koowaad ku jiro Soomaaliya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hadii video ka shay like saar sini shirkalay. Ciao. hiiraan waa runtii waa gobol weyn oo guun ah oo dad madaxay ka soo baxeen oo fara badan oo aad u qiimo badan waana salaamaya reer hiiraan oo dhan meel kasoo joogaan